السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن حالات حسن حسين وطقنا حكسد هل كان إنك لسوا هدلايانا وحكسد وفشيال بإذن الله تبارك وتعالى وحي إنه سو سعودي برامج كين امتحانها يا نوغم عبدالله بالبادات قيسك كارهان وحان كل عجرني موضوعي أن أبحني دقمضة وحي إنه سو إدلادي سديد كمدا دقمضي وحي إنه هاري لبحبو كليا إن شاء الله وما أنتو حنفرقين دونا lambarka sagaalaad kaasoo magaciisu uu yahay si xun u waran waxa weeyaan waa fidnada ugu badan ee dadka maartay kala geeyo qof kastaana uu iska dareemi karaa qofka si xun u waran la baxay inuu yahay qof aad iyo aad u dhibaato badan bulshadana dhexdeeda ka raadiyo war uu kala gudbiyo oo xumaan ah hadduu samaan sheegayo wax wanaagsan ayay ahaan mana uusan ku biireen doqomada laakiin waxa uu gudbinayay iyo waxa uu raadinayay ayaa waxay yihiin wax maartay laga fiican yahay oo bulshada inuu u kala geeyo ama uu isku diro oo maartay ku dadaalo kaana ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nooga digay oo ayad quraan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suuratu al-hujurat ayad 6 ya ayyuhalladhina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay war mid faasiq ah haduu idin yimaado oo war idin keeno intiina maartay ummad kale isan dhibaataynin bal iska xog wareysto oo arinta ayada bal hal dejiyo oo waxay ku saleysantaa waxa uu sheegay maartay hal laga foojignaado bal hal iska ilaaliyo sida la jigay waxaan leenahay qofka calaamadahaas leh waa qof aad iyo aad u liito kana mid ah maartay 10ka doqon ee aan soo sheegnay haddaba waxaan rajeynayaa haddii mid idin ka mid ah uu war idin keeno inaad adinkuna xaqiiqsan doontaan waxa uu idin keenay inaad maartay qolo ku weerartaan maartay dambi aan lahayn oo dad waxa ayaga war aan ka helin inaad ku dhibaateysaan insha Allah inaad ka feejignaatan ayaan rajeynayaa qofka maartay calaamadaha ku sugan ee bani aadamka war ka xun u kala geeyana asagana waxaan rajeynayaa insha Allah biidnaahi tabaaraka wa ta'ala hadii uu clipkan gaaro inuu maartay haduu iska dhax arko oo maartay ka badbaado oo iska ilaaliyo in maartay arrimaha ayaga uu ku sii socdo asagoo ku sifoobayo sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay qofkaas inuu yahay qof faasiq ah oo maartay dadka xogtooda maartay si xun u kala gudbiyo haddaba maadaama mawduucaynu uu ku saabsanaa badbaadada qoyska ninka sidaas ah ee sifadaas leh ee had iyo jeer maartay war un raadiya xaqiiqatan waxa weeye ma ahaan karo nin mas'uuliyad qaadi karo oo meel degi karo oo ilmo iyo reer maartay aabo ahaan karo ilaa haduu u yahay oo dhacdaba inuu u yahay waa nin uu iska ceebaysano had iyo jeer maartay lagu sheekaysto bulshada dariska ay ku sheekaystaan ilmaysan aan akhlaaq aysan lahayn oo wax asaga uu sameeyo kale uu maartay asaguna sameeyo islaantiisuna waxa weeye way ku dayanaysaa ayadana sidaas u bay noqonaysaa waxay noqonaysaa naag war iyo xan iyo maartay wax un raadiso laana asagiba maartay had iyo jeer oo la imaanayo ula soo hooyanayo inuu dad ku xanto oo dad warkooda uu maartay had iyo jeer uu la wadaago haddaba hadii aaba ilaahay uu ka dhigo nin mas'uul ah tahay waxa loo baahan yahay inaad ka feejignaato sifooyinka aan soo tilmaanay oo hadda lambarka 9aad aan joogno ilaa lambarka 1aad inta u dhaxayso wixii aan soo taabanay ee wax aan ka soo tusaaleynay waa wax aad iyo aad looga fiican yahay aabaha inuu ku sugnaado haddaba waxaan rajeynayaa insha Allah biidnaahi tabaaraka wa ta'ala aaba kasta iyo mid kasto doonaya inuu aaba noqdo inuu ka feejignaan doono oo iska ilaalin doono calaamadihii aan soo sheegnay maantana barnaamijkeena intaas ayaan ku soo koobaynaa fadlan daawadow haddii aad tahay mid nagu cusub insha Allah waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biiri doonto oo subscribe like and share inta baad la siin doonto commentigana waa inoo muhiim si maaragtaa wixii aan ku khaldanahay aad noogu sheegtaan wixii fikrado naga maqan aad noogu soo biirisaan haddii rabbi raali ka noqdo haddaba haddii aad iga daawanayso Facebook linkiga waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta sare ee title-ku ku xusan yahay haddii aad YouTube-ka naga daawanayso Xogsad official-na insha Allah si sakhiran waxaan rajeynayaa inaad maartay subscribe-ta dhag ugu sii doonto inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.